waxaa la keenay meydadka 2 qof oo wiil iyo gabadha ilaa iyo hadda lama garanayo sababta ka dambeysay dhimashadooda waxay ii sheegeen dad xogagaala markii aan gudaha galay dhakhtarka gaari dhexdiis ayaa laga helay meydkooda gabar iyo wiil dhalinyaro ah xaafadda shacabka ee magaalada Hargeysa waxaa la ogaaday fariimihii ay isdhaafsadeen ka hor inta aan la dilin haddaba maxay tahay xogaha ka soo kordhaya Huddo Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xamse Axmed Yuusuf oo ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada Somaliland sidee ayuu u dhacay shirqoolkii lagu khaarajiyay labadan shakhsi ee dhalinyarada ah yaa ka dambeeyay maxay tahay xogaha ka soo baxay baaritaanadii ugu dambeeyay haddaba waxaan rabaa inaan kula wadaago fariimaha iyo waxyaabihii laga ogaaday xogta labada qof ee meydkooda gaariga inta lagu soo riday la soo dhigay xaafadda shacabka ee magaalada Hargeysa oo maanta warkoodu uu si aad ah u haysto baraha bulshada haddaba xogihii u dambeysay ayaan kula wadaagayaa ee muuqaalkan sheergaray lana wadaag saaxiibadaada haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biir sidoo kale u ducay dhalinyaradaasi Soomaaliyeed ee xalay sida argagax leh loogu dilay magaalada Hargeysa inta aan kula wadaagin xogtan daawade waxaa dhacday in magaalada Hargeysa xalay la soo dhigay 2 ruux oo naftu ay ka baxday saaran gaari raaxo uu lahaa mid ka mid ah marxuumiinta nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Xamse Axmed Yuusuf ayaa gaarigiisa laga dhex helay isaga iyo gabar saaka waa bariyay gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda shacabka markii dadka qaar ay arkeen gaarigan oo wadada iska dhex yaala waxa ay isku dayeen inay baaraan maadaama wadadu tahay wada gaadiidku adeegsado waxaana la ogaaday in 2 qof ay gaariga dhex taalo markii gaariga la jabiyeen la ogaaday labaduba inay yihiin meyd waxyaabaha la yaab kale ee kiiskan shakiga badan ku dhaliyay ayaa ah in wax jiraaxa ah ama dhaawac ah aysan ka muuqan labada marxuun kadibna loola cararay mid ka mid ah isbitaalada waaweyn ee magaalada Nairobi halkaasna ay yimaadeen labada qoys ee marxuumiinta iyo sidoo kale laamaha ammaanka oo haatan ka gudanaya waajibaadkooda sidoo kalena wada baaris aad u xooggan inta howlgal ku socday laamaha ammaanku waxa ay isku dayeen inay baaraan maadaama dadkan oo naf baxay la soo dhigay meesha in la ogaado cidda waday gaariga iyo sidoo kale gaariga sida uu ku yimid meesha lana baaro kaamirooyinka ka agdhow halka uu falku ka dhacay nasiib xumo waxaa la helay xogta in gaariga markii meesha la soo dhigayay aysan shaqaynayn wax kaamiro ah oo ka agdhow halka ay wax ka dhaceen walow kaamirooyin ka fogfog ay muujinayeen gaariga oo socda in halkaasi uu maray 11 ilaa 12 habeenimo laakiin soo laabadkii ay ahayd xilliga 4 habeenimo oo qiyaas ahaan ah xilliga salaada subax ay soo dhowdahay oo masaajida laga aadimayo ayna wax qof ah ama dhaqdhaqaaqa uusan ka jirin magaalada oo dadka inta badan ay hurdaan marka laga reebo culimada muaadimiinta ah ee masaajida u socda shirqoolkaasi ayaa u muuqday inuu yahay fal laga soo shaqeeyay oo la rabay in lagu qaarijiyo labadan xubnood sidoo kale ehelada marxuumadda ayaa ku guuleystay inay furaan biinka gabadha ugu xiran taleefanka waxaana dib loo baaray masaajida waxaana la ogaaday in wiilka iyadoo ay xiriir ka dhaxeeyay sidoo kalena xalay markay gurigeeda ka soo baxaysay ee wiilka la soo xiriirtay ehelada ayaa sheegay in fariimaha isdhaafsadeen ay ugu dambeysay waana soo baxay Xamse xageebad joogtaa oo ka dhigaysa in gabadhu ay isaga soo aaday isagana ay la kulmaysay inta aanan ku faahfaahin waxyaabaha hadda suuqa ku dhex jira laakiin ehelada marxuumiinta ayaa labaduba sheegay in wiilka iyo gabadhuba uu qof walba xalay xilli dambe ama xilli dhexe ka soo tagay guriga iyagoo markii dambe eheladu ay soo waceen oo labadooduba ay qaban waayeen taleefanada waxa ayna sheegeen in yacni dhowr saac tusaale ahaan 11 ama 12 habeenimo wixii ka dambeeyay ay taleefanka qaban waayeen taas oo ka dhigan in shilku uu dhacay ama gacan cadow ay ku jireen xilligaas walow 4 ama 10 saac oo habeenimo la soo dhigay gaariga xaafadda shacabka baris xooggan ayay wadaan laamaha ammaanka oo ka dhan ah cidda falkan geysatay walow la aaminsan yahay dadkan in la sumeeyay waxaa kale oo jirta shakiyo fara badan oo u dhaxeeya qaabka ay u geeriyoodeen Huddo Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xamse Axmed oo ah shakhsi ka tirsan ilaalada madaxtooyada Somaliland kaas oo dilkiisa la siyaasadeeyay lana sheegay inuu ka dambeeyo xisbiga hadda talada la wareegay ee Somaliland oo hogaaminayo madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro
oo la sheegay maadaama uu ka mid ahaa ilaaladii khaaska ee madaxweynihii Muuse Biixi Cabdi gaar ahaan kuwa militariga ee koofi guduuda ah in markaasi ay beegsatay sirdoonka xisbiga cusub ee Somaliland walow arrinkaas uu yahay arrin daciif ah oo ay isticmaalayaan dadka mucaaradka ku ah madaxweynaha cusub ee Somaliland. Sidoo kale waxaa jira shaki kale oo laga qabo in labadan xubnood ee xiriirku ka dhaxeeyay ay iyagu naftooda khaarijiyeen ama mid ka mid ah lana aaminsan yahay in cabitaanka mid ka mid ah labadooda oo qofka kale sun ugu daray si labadooda markaas halkaasi ugu naf waayaan. iyaduna waa xogo baarista hordhac ka ah oo xitaa laga yaabo in lagu marin haabinayo baarayaasha kiiskan. waxay ahaataba Somaliland booliska Somaliland ayaa war uu soo saaray ku sheegay in marxuumiintu uu yaalaan isbitaalka weyn baaristuna ay socoto sidoo kalena ay ka digayaan in la sameeyo xogo hordhac ah oo marin habaabin ku ah sidoo kalena been abuur ku ah bulshada Somaliland ilaa iyo inta boolisku uu baaristooda kasoo gabagabeynayo dadkii falalkan lagu helana lagu soo qabanayo. waxa ay sheegeen in dadkan aan jirkooda laga helin wax jiraaxa ah ama dhaawac ah laakiin ay jiraan in la aaminsan yahay dadkan in sun ay u geeriyoodeen ama hal cabsiyo ama iyagu ha cabaan ama mid si kama ah ku dhacday ha noqotee. boolisku waxa uu sheegay in baaristu ay socoto in kaamirooyinka la baarayo in jirkooda laga baarayo wax maadooyin halis ku ah bani aadamaha haddii ku jiraan gaariga in dib loo baarayo iyo xitaa sidoo kale in taleefanadooda lagu sameynayo baaris wixii ka soo kordhana iyagu ay soo baahin doonaan laakiin wixii iyaga ka soo hara oo kiiskan si deeply ah ama gudaha ah uga hadla in ay la xisaabtami doonaan boolisku. waa intaas wixii boolisku sheegay. sidoo kale warbaahinta guud ee Somaliland ayaa booqatay isbitaalka guud waxa ay sheegeen inay ku sugan yihiin ehelada marxuumiinta gabadha iyo wiilka sidoo kalena ay jiraan dadweyne fara badan oo ku soo xoomay kadib markii ay maqleen isbitaalka la geeyay marxuumiinta oo xaalkooda ay ka baarayaan booliska Somaliland. sidoo kale waxay sheegeen maamulka Somaliland inuu keenay baarayaal fara badan oo isugu jira dhaqaatiir iyo sidoo kale kuwa baara dembiyada culculus ee ka tirsan laamaha dembi baarista ee maamulka Somaliland kuwaas oo la tacaalaya xaaladda fal dambiyeedka ka dhacay magaalada Hargeysa ee ku qotoma shakhsiyaadkan laga helay gaariga dhexdiisa kaas oo markaasi la aaminsan yahay in ay ku geeriyoodeen shirqool maadaama gaariga wiilka uu watay la soo qaaday iyagoo marxuumiintu dhex yaalaana la soo dhigay mid ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda shacabka. maadaama uu socdo markaa baaristu daqiiqad kadib warar ayaa soo baxaya wixii ka soo kordhana waxaan kugula wadaagaynaa muuqaaladeena soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo. muuqaalkan share gareey lana wadaag saaxiibadaada meel fogna gaarsii waa maasantahay.